وبركاته دمان ومد سومال ميل والبواد نغلا سعوتان تلفزيون قرنك الصوماليات إيرادي مقدشو عدك جمهورية إيراد مقدشو عدك عيدمada inta maqal iyo muuqaal ayaad nagala xiriiri kartaan waa barnaamijkii gurmad walaal oo lagu gurmanayo ummadda Soomaaliyeed ee dhibaateeda abaaraha xoog leh ay ku haystaan dalka Soomaaliya iyadoo maanta ay qof walba dareensan tahay xaaladda abaaraha meesha ay marayso haddana shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda bini'aadanimo ayaa mid xoog u kacsan oo xitaa dhalinyaro wax iska ururinayso meel bay caalamka joogaan caawana waxay fursad weyn inoogu tahay waxaan barnaamijkan caawa ku casuuman oo inoo fadhiyo oo nagala qayb geli doono haddii Allah awoodda raalli ka noqdo gudoomiye ku-xigeenka macahadka culimada Soomaaliyeed oo aad taqaanaan Sheekh Nuur Baaruud oo waqti badan ka soo shaqeeyay dhinaca sadaqada iyo dhinaca kaalmada ama tabarucaadda ummadda dhibaataysan meel walba ay ka dhacdaba sanado badanna ka soo shaqeynayay sidoo kale waxaa caawa garabkayga fadhiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo caawa ka soo qayb gala barnaamijka iyaduna fursad kale inoo tahay barnaamijka gurmud walaal barnaamijkeenii aan muddadagu soo wadnay oo jimcaha iyo axadaba aan ku kulmi jirnay maalinta jimcaha sidan oo kale 7:00 ama 1 saac bar habeenimo wuxuuna ka baxaa 9:00 maalinta axadana 10 ama 4 saac habeenimo qof walba suu yaqaan ayaan soo galnaa hawada waxaana ka baxnaa 12 ama 6 saac habeenimo fursad bay noo tahay inay ummadda Soomaaliyeed halkan nagala xiriiraan fursad bay noo tahay inay sadaqada iyo yabaha ka qayb galaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida ay uga qayb galeen oo uga mahadcelinayaan kaalinta weyn ay geysteen dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan barnaamijkan waxaa sidiisaba soo qabanqaabiyey dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka maqnayn culamaa diinka dhalinyarada aqoon-yahanada waxgaradka ururada haweenka dhammaan waxay ka qaateen kaalin weyn waa barnaamijkii gurmud walaal oo aan ugu wada talagalnay inaan ugu gurmano ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha xooggan ay saameynta ku yeesheen barnaamijka intaan u guda gelin marka hore waxaan rabaa inaan kelmadaha ugu horeysiiyo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed si uu yiraahdo kelmadihii ku habboonaa barnaamijkii gurmud walaal bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam awalan ilaahay baa ku mahadsan inoogu isugu keenay halkan innagoo ka shaqaynayna dan guud oo isugu nimid ummadeenna inaan dhibaatada ku degatay ee faraha badan ee weyn inaan ka badbaadino waxaan sidaas oo kale u mahadinayaa TV-ga qaranka khidmada ummaddiisa uu bixinaya waana waajib lagu leeyahay waxaan la iloobi karin ra-iisul wasaarihii qaranka mudane xasan cali khayre oon ognahay howlaha haysta iyo mas-uuliyadda culayska ay leedahay haddana waktigiisii ku tabarucay inuu ummaddiisa barnaamijkan gurmad walaala loo gurmanayo nafsad ahaantiisii inuu soo fadhiisto oo ka qayb galo waa arrin taariikhi ah oo runtii taariikhdu waa isqori waana u qoraynaa insha allah wadaninimadaas sharaftaas dareenkaas soomaalinimo waxaana wataa keentay un danqashada uu ummaddiisa ka danqanayo inuu soo fadhiisto uu ka soo qayb galo barnaamijkii gurmud walaalo uu xoojiyo waa arrin sharaf leh intaa markaan sheegay waxaan rabaa sidii caadadaba inoo ahayd inaan isku baraarujinno maadaama oon yabooh iyo ummadeenni inaan badbaadino meeshaan aan u fadhino sadaqadu qiimaha ay leedahay iyo waxbixintu bini aadmiga waxaa la xidhiidha naf iyo shaydaan waxaan had iyo kor wacdiga u sheegayno waxaan dadka ka fujinaynaa shaydaanka iyo nafta labaduba dadka waxun bay faraan ilaahay baa qur-aanka ku leh ashaydaanu yacidukum alfaqra waya'murukum bilfaxshaa wallahu yacidukum maqfiratan minhu wafadla wallahu waasicun caliim shaydaanku dadka wuxuu faraa faqri iska bixinin xoolaha kaa dhammaan xisaabtiiba isdhimi iyo foolxumu dadka fari ilaahayna dembi dhaaf iyo fadli deeqdiisuna waa waasic wuxuu qur-aanku inoo sheegay in sadaqada la laablaabi suurat lbaqara mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili اllahi kamahali xabatin anbatat 7 sanaabil fi kuli sumbulatin 100 xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim aayaddaasi waxay sheegi sadaqada 700 oo jeer in la laablaabi weliba laga sii badin wallahu yudaacifu liman yashaa ilaahay intaa weliba intuu ka sii badiyo qofkuu doono waxay ku xidhan tahay ikhlaaska niyada iyo istustus iyo hal lagu ammaano ayna u ahayn yaa qayb ka qaadanaysa marka waxaa weeye sadaqada fawaa'id bay leedahay saan hadda ku hor idiin sheegay kow asadaqatu tudfiu qadaba rabbi sadaqadu waxay daminaysaa carada ilaahay innagu had iyo kor xumaan baa inaga dhacda
ilaahay baa dhici karta inuu inoo cadhoodo marka sadaqadu waxay daawo ka tahay cadhada ilaahay inay damiso waxaa kaloo sadaqada fawaa'ideeda ka mid ah yowma laa dilla ilaa dilla carshi raxmaan maalintaa hooska una jirin ee qoraxda madaxeenna la keenayo kullu waaxid oo mutasadiqa yastadilu fii dilli sadaqatihi wuxuu harsanayaa sadaqadiisa hooskeedii buu harsanayaa maalinta qiyaamo oo qoraxda madaxeenna la keeni sadaqadu qofku harsanayaa waxaa kaloo ka mid a sadaqada fawaa'idka ay leedahay waxaa weeye waxay daawo ka tahay jirada waan ognahay innaga sanooyinkan dambe cudurro aan la aqoonin aynaan aqoon jirin bahal jine cancer iyo gastriti iyo wax soomaalidii hore ayna aqoonin sokor iyo dhiikar iyo waxaas iyo cudurradaa dhibka badan kulli daaway ka noqon oo nabigeena yidhi calayhi الsalaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina jiraan waxaad ku daaweysaan sadaqada marka sadaqa la bixiyo ilaahay oo ilaahay loo baryo sadaqadaas waxay sabab u noqon qofkii ilaahay maradkii inuu ka qaado sadaqada yani fawaa'idkeeda waxaa ka mid ah 7 albaab oo balaayo oo soo socda ayay celinaysaa sadaqatu tudaaficu lbalaa balaayaday hor joogsanaysaa marka waxaa ka mid a fawaa'idkeeda sadaqadu siduu nabigeenu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam maalka way badin waxaa laga yaaba qofku inuu isra xoolihii kaa yaraadaan la way badin yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat waa aayad qur-aan ilaahay ribadana wuu baabi'iyaa khasaaro sadaqadana wuu barbaariyaa waxaa dhici kartay $1 ama 1 shilin ood bixisay ilaahay buur inuu la ekeysiiyo oo kuu barbaarinaya wuu kuu weyneynayaa aakhira miisaanka waxaad u baahan tahay wax kuu cusleeyaad u baahan tahay marka sadaqada fawaa'idda ay leedahay walaalayaa lama tirinayo nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam maa naqasat sadaqat min maal sadaqadu maalka ma nusqaamiso way badinaysaa wa tubaariku cumra cumrigana way barakeynaysaa qofka cimrigiisii waxay ka dhigi cimri barakaysan oo cibaado leh oo khayr leh oo khayr intuu adduunyada joogo wanaag iyo khayr uu tabcanayo ayuu noqonayaa marka way fara badan tahay fawaa'idda sadaqadu ay leedahay aad baad umahadsantihiin jazakum allahu khayr jasaakum allahu khayr sheekh nuur baarud gurxan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed aad ayuu u mahadsan yahay kaalinta muuqata ee uu ka galo mar walba dadka dhibaataysan sidii loogu gurma lahaa ama loo gargaari lahaa iyo taariikhdii yare uu ka sheekeeyey ee sadaqadu waxay faa'iidada leedahay sadaqadu runtii siduu noo sheegay sheikha waxay faa'iido badan ayay leedahay dabkay qaboojisaa carada ilaahay yaraysaa maalkay kordhisaa ma nusqaamiso way albaabo badan taha sadaqada qof walboo sadaqa baxsadana faa'iidadeeda ayuu helaya haddii allah awoodal raalli ka noqdo barnaamijkeena caawa waa barnaamij fursad weyn inoo ah waxaa nagala soo qabal sidaan hore idinkugu sheegaba waxaa garabkeyga bidix fadhiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo caawa u diyaar ah inuu kaalintii ay ummadda soomaaliyeed u baahnayn inuu usoo tabiyey xeerka dowladda ay u marayso dhinaca abaaraha iyo dowlad ahaan iyo nolosha waddanka kaalinta ay u maraysa iyo inta u dhiman iyo waxa u qabsoomi doono iyadoo xukuumadda ay dhowaan insha allah ummadooda sugaysa kusoo dhawa mudan ra-isul wasaare waa mahadsan tahay marka hore waxaan u mahad celinayaa t v-ga qaranka sida sharafta iyo karaamada la ugu shaqaysiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan sida aada arrimaha abaaraha qeyb uga qaadataan taasoo ah waajib dadka soomaaliyeed oo dhan saaran meel walba ay joogaan waxaan aada ugu mahad celinayaa walaalkay allah barakeeye sheekh nuur baarud oo kulli aada wargaranaysaan oo subaxi markuu soo tooso ilaa habeenkii ka shaqeeya sida uu dadkiisa u badbaadin lahaa sheekh nuur baarud oo wada garanaysaan saakay ilaa hadda wuxuu ka shaqeynayay sida uu raadiye iyo t v iyo shir marba meel u fadhiisan lahaa isagoo dadka walaalihiisa la xanuunsanaya sheikh waa u duceyneynaa waana u mahad celinaynaa waxaana leenahay ilaahay ha barakeeyo waxaan rabaa dadka walaalahan ay dhegeysanaya inaan u sheego dadka soomaaliyeed in ka badan nus ayaa waxaa soo asiibay abaaro aad u adag oo dhibaato badanna keenay dad badan oo walaalahan ay ku naf waayeen caruur badan iyo hooyooyin badanna ay dhibaataysan yihiin dowladda soomaaliyeed oo aan isku dayeyna hadda inaan xukuumad dhidibada u aasno waxay ka shaqaysay waxyaabo badan inaan isu keenno ganacsatada culamaau diinta adduunyada aan la hadalno qaramada midoobey ninkii ugu sarreeyey
uu noo yimaado aan arrimahaas kala hadalno. hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha safaaradaha halkan kule oo dhan waan la hadalnay. kulligood oo dhan waxaan ka codsannay una sheegnay inaan maalin dheeraada la sugi karin sida ugu dhaqsaha badan loogu gargaaro ummadda soomaaliyeed. laakiin waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay isku tashtaan, inay gacmaha isqabsadaan. madaxweynaha iyo anigu maanta waxaan la shirnay ganacsatada soomaaliyeed oo ka wada yimid meel walba, waxayna ballan qaadeen inay garbaha isqabsan doonaan, la shaqayn doonaan guddiga gurmadka abaaraha, ayna kaalmayn doonaan dadka soomaaliyeed oo tabaalaysan. waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan, kuwa dhibaataysan waxaan rabaa inay ogaadaan inaan la xanuunsanayno oo xanuunka ay qabaan aan la qabno. waa sababta aniga sheekh nuur baaruud aan u fadhina halkan. kuwa aan dhibaataysnayn adduunyada meel walba ka jooga waxaan leenahay sida aan ugu gurmano shacabka soomaaliyeed maantay waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed. sida aan isugu gurmano waxay qeexi doontaa cidda aan nahay. sida aan isugu soo gurmano waxay wax ka sheegi doontaa diinteenna iyo caqiidadeenna iyo iimaankeenna. maanta haddii aad awoodid inaad qof walaalkaa samato bixisid, waxaan kaa codsanaynaa ha sugin berri caawa samey. ha sugin berri caawa samey. dowladda iyo xukuumaddu waxay ka shaqayn doonaan in muhiimadooda keliya oo ugu horeysa ay ahaato sida abaaraha loogu gurman lahaa. dhallinyarada soomaaliyeed, haweenka, ururada kala duwan kulligood way isu yimaadeen. shalayto sidoo kale shir weyn baan yeelanay, shirkaasoo looga shaqayn doono arrimaha abaaraha keliya. dadka walaalahay ah oo dibadaha degan oo isugu imaan doona shirarka kala duwan maalmaha soo socda adduunka meel walba ay ka joogaan, waxaan u sheegayaa in dalka lagu dhibaataysan yahay. wax walba ood awoodaan fadlan soo gaarsiiya guddiga abaaraha. waxaa kaloo muhiima inaad ogaataan dadka si wax loo gaarsiiyo waxa aad soo dirtaan waxaa muhiima inay ku dhacdo gacan ammaano ah. shiikhan hortiina fadhiya ayaa nooga mas-uula. cid soomaaliya oo ka wanaagsan ood aamini lahaydeen sheekh nuur baaruud anugu iyo culummada kale ma garanayo. fadlan walaalaha sida ugu dhaqsaha badan u soo gaar. annagana waxaan idin ballan qaadaynaa wixii aad soo gaarsiisaan sheekh nuur baaruud iyo guddiga la shaqeeya in sida ugu mudan loo gaarsiiyo dadkoodii. waxaan rabaa sheekh nuur inaan kuu sheego dhowr arrimood. tan koowaad, waxaa ila soo hadlay madaxweynaha. qof ganacsadaha ayaa wuxuu u keenay qoyskiisa $30,000 iyagay u keeneen. madaxweynuhu anuu ii soo dhiiba lacagtii, wuxuu yihi 30,000 kun oo aniga la ii keenay, waxaan rabaa inaad adigu maadaama aad guddiga abaaraha la shaqaysid aad igu guddoontid. waan soo qaaday 30 kun, madaxweynehina waan ka soo qaaday, xafiiskaygana waan ka soo qaaday, adigaan kuu keenay. waxaan rabaa inaan kuu wareejiyo ood adigu gaarsiiso dadka dhibaataysan. aad baad u mahadsan tahay. adigii madaxweynuhu waad mahadsantihiin. anna waxaan iga ballana inaan berrito ku wareejiyo guddiga abaaraha oon akoonka ku shubno, dadkana sida ugu dhaqsaha badan aan ku gaarsiino. waa mahadsan tahay. waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego shirkeennii aan shirnay shalay oon ka codsannay ganacsatada inay taakuleeyaan dadka walaalahooda. waxaa ila soo xiriiray madaxa shirkadda dahabshiil ee halkan fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. waxayna ku yabooheen lacag gaaraysa $300,000 ay ugu yabooheen dadka ay abaaruhu saameeyeen. lacagtaasna waa la idin keeni doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii la yidhahdo. waxaa kaloo ila soo xiriiray safiirka turkiga oo yidhi dowladda turkiya waxay ka qayb qaadan doontaa arrimahan sida ugu dhaqsaha badan. waxay yidhahdeen waxaan ku bilaabaynaa 2 tan iyo bar oo ah daawada shubanka joojisa oo ay iga codsadeen in xafiiskayga uu ka soo qaado. waana laga soo qaadi doonaa sheekh nuur haddii ilaa yidhaahdo berito, waana lagu soo wareejin doonaa. adigaana noo sheegi doona meesha la geyn doono. ganacsatadii kale oo aan la shirnay aniga iyo madaxweynuhu maanta waxay noo sheegeen inay si degdega wax u soo aruurin doonaan iyagoo ka kala yimid soomaaliya oo dhan, magaalooyinka dalka soomaaliyeed oo dhan. sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan mar labaad ugu celiyo dadka soomaaliyeed oo na dhegeysanaya ama na daawanaya iyo cid walba oo soomaaliyeed oo fariintaydu gaarto. haddii ay nagu jirto wax dadnimo ah iyo damiir ah,
haddii aan u damqayno walaalaheena soomaaliyeed maantay qof walba waxaan ka codsanaya inuu dadkiisa garab istaago waa mahadsantaha جزاكم الله خير. هذا يوم سيار الوزراء دولة فدرال الصومالية مدنة حسن على خير وها وربحين كوبن كديبي حالة هيرك الدولة بنما يراد قناعسة هذا ومدة إلى كل من أسجي مدحوينها جمهورية فدرال الصومالية سيدو إنه شيء قبل وحدي بعاو وتلفزيون قرن هورتي بدون بحريان كهيئة علماء شونور بارود كور الجيش شونور بارود كورحان صدق كون أو دولار أو الله كان مدحوينها وسجن وكسور الجيريز الزارع الوزارة وكان ستوصل أيضا أمد وداون يسون شغلور بارود كورحان عندي شغلورنا وحوش شاقة إنه بريته وكورة جدونه أكام كقربة كأبارة سيدو كلا شركة دهب شيء أيها سدح بقول وكون أيضا شاكتين كصدق يسون يسون لا كان رباط هذا حقوق له سدح بقول وكون إن شاء الله وحنقول جدونه جودي أبارة تصبح لنا فرحات جنا عستد الصوماليين ولكن مبالغات سماين وحرجينا الصومالي حد بكينا تاجر ولجين أيه تهالكل جينا xilliga maanta la isgargaari lahay oo sadaqadu ay furan tahay oo walaaltinimadu ay furan tahay qof walba ku fikir caawa qof baa meel dibada jiifo banaan ah oo dhaxan dilaysa oo dabeel ay ku dhacaysa qof baa shubal biyad u dhimanayo faleebala qof baa biyo la qof baa wuxuu cunala la fadlan sida uu inoo sheegay wasaaraha iyo shaqnuurba gurmadka abaaraha laga qayb galo barnaamijka la magac baxay gurmad walaal ma aha kaliya inaad uga qayb gashaan xilligan oo kale inaad telefoon soo dirtaan way shaqaynayaan guddiga waqti walba saacad walba ay shaqaynayaan akoonada meeshay ku qoran yihiin dhammaan lacagaha waa kusoo diri kartaan EFC-ga aad kusoo diraysaan telefoonkana waa furuhu waa 2 49 4 akoonadana meeshay ku qoran yihiin teleefanada waa inoo furan yihiin saacadda laga bilaabo dadweynahana waa u furan yihiin waa kusoo dhaweynaynaa waxaad nagala soo xiriiri kartaan 86 10 35 86 waa saddex number oo isku xigta oo 86 ka bilowdo 10 ayaa dhexda ku jirta 35 36 37 u dambayso gurmad walaal waa barnaamijkii qiimaha badnaa ee dadka walaalaha ay isku gargaari jireen maalmaha jimcaha iyo xadana telefishinka qaranka Soomaaliya iyadoo maalmo kalena ay qabtaan telefishinada afka Soomaaliga ku hadlo taasi waa mid gurmad ah oo ummadda dhan ay sameynayso shaqnuur ayaa rabaa laba kalmadana inaan siiyo teleefanaduna waa inoo furan dadweynahana waa soo dhaweynaynaa caawa sidoo kale waxaan nagala soo qayb galay wasaaraha oo leh aniga ayaa ka qayb galaya caawa بسم الله الرحمن الرحيم مر لبعض waxaan u mahadcelin ra'iisul wasaaraha oo runtii waqtigiisii hore annagana waxay noo tahay runtii nashaad gelin iyo xamaas ayay noo tahay caawa stuudiyaha qaranka iyo ra'iisul wasaarihii inuu barnaamijkii gurmad walaalna dhex fadhiyo sharaf bay noo tahay waxaan rabaa si diiran inaan ugu mahadceliyo lacagtan uu soo gaarsiiyey ra'iisul wasaaruhu ee madaxweynaha inta loo geeyey madaxweynuhu uu yiri ummadii hala gaarsiiyo ummadda baahan hala gaarsiiyo aad buu ugu mahadsan yahay ra'iisul wasaaruhuna wuu ku mahadsan yahay lacagtiina anoo guddigii abaaraha wakiilka ah guddiga gurmadka qaranka gacantayday ku jirtaa waxaa kaloon si diiran ugu mahadcelinaya walaalaheen shirkadda dahabshiil oo ku yaboohay 300,000 dollar inay guddiga gurmadka soo gaarsiiyaan ayagana waxaan leeyahay maalkiina allaha barakeeyo xoolihiina allaha badiyo jazaakum allahu khayr aad baad u mahadsantihiin shirkadaha waaweyn oo dhan sidaas iyo si ka badan ayaa laga rabaa fari kama qodna ummadeennu hadday dhammaantay dee lacag waxay inoo qabaan baysaba male marka hala soo gurmado waxaan rabay intaa inaan raaciyo dadka soomaalida diasparaha jooga horta waa dadaashaan oo waad niyo fiicintiin allah idin barakeeyo waxaan rabay inaan idiin sheego matalan dad teleefanadii waxaa laga yaabaa markaan soo fadhiisano sidii la rabay dad badan inaanaan u qaabilin oo teleefanada ayna suurto gelinin marka waxaa iska fiicnaan lahayd mar haddii akoonadii aada aragteen inaad iska soo dirtaan ducadana annagaa soo hurgufayna mar walba iyadoo jumlo aan mar walba idiin soo diraynaa midda kale waxaa fiicnaan lahaa hadda ayaan hore waxaan maqlay Minnesota abaabul baa ka socda masaajid dhowr iyo 10 masjid jaaliyadii waxaan jeclaan lahayn dadkaas uguna baaqayaa wixii ay abaabuleen oo ay aruuriyeen oo suumaatinkooda ka dhashay sheekh halmar dadweynaha siin raadaha halo assalaamu calaykum qadkii ugu horeeyay halo assalaamu calaykum waa ku soo dhaw barnaamij gurmud waa magacaaga halkaa joogto
الوزارات المستوى هذه المرعبين كان شغل الضرب وماشي موظف يتمتع أنه شعبنا ما عندنا وإحنا عندنا أنه حاجات كثيرة أكبر ويعمل مدير $100 soo diraysaa walaal adigoo mahadsan jazaaka allahu khayr aad baad u mahadsan tahay ilaahay ajira kaa siiyo allaha ku barakeeyo xoolahagana allaha badiyo meeshaad ka soo qaaday wax ka khayr badan xawaaladaha kusoo shib akoonadooda aad baad u mahadsan tahay sheekh naawud marka waxaan rabaa dadka minnesota jooga waxay aruuriyeen inay kusoo hagaajiyaan gurmadka guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha dad waan ogahay dad baa yidhaahda annagaa qaybinayna gobollada aan u kala diraynaa waxay ku kala duwantao farqiga udhexeeyaa wuxuu yahay guddiga qaranku gobol gaara uma taagna soomaali oo dhan buu u taagan yahay wixii asagaa garanaya dhibaatadu say u kala daran tahay asagaa gobol walba lacagta wuu u dirayaa marka waxaa idiin fiican guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha inaad usoo dirtaan sidaasaan idinka codsanaynaa sidaas oo kale saan maantaba universal oga sheegay sheekh umar iyo sheekh shibli iyo culamo waaweyn baa nairobi wax ka aruurinaysa ayagana waxaan ka codsanayaa guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha ammaano waan idiin ballan qaadaynaa casrigii musuq maasuqa insha allah waxaan rajaynaynaa sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba uu ballan qaaday inuu dhammaaday oo shakigii badnaa ee dowladda laga qabayna inuu iska dhammaaday anigu hadda guddiga gurmadka ee qarankaan la shaqeeyaa weli xataa dareen yar ima gelin qof lacagtaahan guri kaga jiro mana geli karaba sababta aad baan u ilaalinaa mana jiraba dad aan ka dareennay marka alxamdulilah horumar baa socda marka guddiga qaranka ee gurmadka asagaa dadkii gaadhsiinaya asagaa yaqaana gobolladii siday kala yihiin iyo dhibaatadii siday kala tahay inaad usoo dirtaan ayaan rajaynaynaa waxaan rabaa cabdullaahi oo si gaara inaan uxuso habeen dhaweed waxaan la hadlay switzerland gobol bay isku urursadeen waxay dhaheen saacaddaas baan kula soo hadlaynaa khadka kusoo gelinaynaa darsi diini aan u jeediyo sadaqada ku saabsan lacag bay soo aruurinayaan switzerland gobol kamida dadkaa jooga waxaan ka codsanayaa wixii aad aruurseen sida ugu dhaqsaha badan inaad soo gudbisaan waxaa isaguna xiise leh nin baa iga soo wacay switzerland cabdicasiis axmed cabdille la yidhaah wuxuu yihi 500 baan sheekhow soo dirayaa waan u sheego waxaan yidhi habeen dhaweyd gobol switzerland aan la hadlay lacag bay aruurinayaan bal u tago dadaala dheh wuxuu yihi gobolkaasaaban joogaa ayagaa waan oga barnaamijkana waan oga laakiin anigu waxaan go-aansaday oon u sheegay iyagana yani asagoo dhici karta lacagtaas qof soomaaliya inuu u dhinto inaana hal saac dib u dhigayn saasaan anigu usoo hormariyey buu yihi 500 uu soo diray masha allah marka dadaalkaas iyo niyadaa fiican yaan rabaa kulligiin inaad qaadataan waxaa weeye hala degdego saacaddan oo kale arrintu degdeg bay u baahanta aad baad mahadsan jasaakum allah khayr sheekh nuur jasaakum allah khayran wuxuu ku nuuxnuuxsaday sheekh nuur sida aad ka maqlaysaan ama aad ka daawanaysaan ninka dhalinyarada ah ee 500 yiri saacad inaan dib usii dhaco ma sugi karaan keliya waa inaan hadda diraa dadkiisii iyo asxaabta ula deganaa magaaladan inay lacag ururinayaan haddaba qof walba waxaa laga doonayaa sida uu cabdicasiis u fikiray inay u fikiraan wakti dheer oo dib loo sii dhigta lama joogo dadka gaajay u dhimanayaan haraaday u dhimanayaan raashin la-aanay u dhimanayaan dawo la-aanay u dhimanayaan idinkoo mahadsan aad ayaad u mahadsantihin waxaa rabaa inaan mar labaad inaan ra-isul wasaaraha mar labaad siiyo fursad kale oo aan ku xusuusiyo jaaliyadaha dibadaha ee xiriirka tooska idinla soo sameeya ra-isul wasaare xaaladahooda bal wax naga sii war jaaliyado badanaa nala soo xiriiray anigana qaar ka mida ayaan kula hadlay telefoonka kulligood waxaan gaarsiiyey isku fariintaasoo asalkeedu ahaa in gurma degdeg ay u sameeyaan dadkooda waxaana ku iri qofna yaanu ka welwelin waxa uu bixin karo haddaad $5 bixin kartid haddaad 10 bixin kartid haddaad 10 kun bixin kartid haddaad 100 kun bixin kartid wax walba ood bixiso waxbay u tarayaan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan jaaliyado badan ayaa jira oo maalmaha soo socda aan ogahay inay ku leeyihiin isu imaatin dalka dibaddiisa waxaan aada u codsanayaa in haddii wax xafladeyna ay jiraan loo bedelo in wax loo ururiyo abaaraha lana soo gaarsiiyey sida walaalkii sheekh nuur baaruud uu sheegay guddiga abaaraha oo iyaguna sida ugu dhaqsaha badan u gaarsiin doona dadka tabaalaysan dadka jooga soomaaliya dhexdeeda oo fiirsanaya ama arkan nambarada
wax lagu soo diri karo. iyagana waxaan ka codsanayaa inay wax walba ay awoodaan halkaas kusoo diraan. dad qof walba oo Soomaaliya joogto telefoon ay leedahay, intiina badanna EVC aa leedahay. haddii markaa 5 milyan oo qof ama 6 milyan oo qof ay telefoon leedahay, EVC-na ay leedahay, qofkina uu dollar keliya bixiyo, waxay idin tilmaamaysaa inta ay noqon karto. waxaa idinka rabaa marka inaadan yaraysanina qof naftiisa inaad badbaadisaan oo walaalkiina ama walaashiina ama hooyo Soomaaliyeed ama aabbo Soomaaliyeed ah. waa wax diiniyana xaq lagu leeyahay siduu sheekhu noo sheegay, laakiin damiir ahaanna lagaa rabo inaad wax ka qabato. annaga ka mas-uuliyad ahaan dalkan dadka jooga kulligaan hadda waxa ugu horeeya oon ka shaqeyna waxay tahay keliya sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen. waxaan marka dhiirigelinayaa dadka jooga dalka dibaddiisa inay sida ugu dhaqsaha badan isu abaabulaan meel walbay joogaan, ay u soo gaarsiiyaan guddiga. waxaa kaloo dhiirigelinaya dadka magaalada jooga oo iyaguna guddiga la soo xiriiri kara, iyo kuwa haysta telefoonada oo isticmaali kara EVC-ga aanay ka daahin oo ay sida ugu dhaqsaha badan wax walba ay awoodaan inay bixiyaan. waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan idhaahdo ammaanadu waa muhiim. sheikhu siduu noo sheegay, anigu waan soo gaarsiiyey wixii maantay soo gaaray, qof walbana waa inuu soo gaarsiiyaa. de qof ka wanaagsan ama aan garanayo oo Soomaaliya, Sheekh Nuur ka wanaagsan iyo culimada kale iyo dadka walaalahooda la shaqeeya oo waxaan ka mas-uulka ama garanayo. tan kalena waxaa weeyaan sideedaba dadka Soomaaliyeed waxaa u dhalatay dowlad cusub, waxaa lasoo dhisi doonaa xukuumad cusub. xukuumaddaasuna waxay ku dhisnaan doontaa haddii ilaa yidhaahdo maamul wanaag. waxyaabaha ugu horeeya oo lala dagaalami doonana sida madaxweynuhu ballan qaaday, anna aan hortiina maro badan ka ballan qaaday, waa in la xoojiyo ammaanada, xoogna loola dagaalamaa musuqmaasuqa, qofina aanay ka sarrayn doonin sharciga haddii ilaa yidhaahdo. aad ayuu mahadsan yahay ra-iisul wasaare mudane xasan cali kheyre. waxaa qadka soo gashay intii aad hadalka haysa ra-iisul wasaare sheekh gabar naciimo la yidhaahdo oo London joogto oo tiro waxaan soo dirayaa wixii ilaahay iga soo qaado. qadadka ayaa cariiri ahaa, annagana waxaan wadnay inaan warbixin gudbino. waa ina soo gaarta taasna insha allah wixii qadadkuna waa la soconaynaa. barnaamijkana si toos ayaad ugala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed, raadiyo Muqdisho, codka jamhuuriyadda iyo raadiyo Muqdisho, codka ciidamada, intaba si toos ayaad ugala socotaan. teleefanada aad nagala soo xiriireysaan waa teleefanada meesha ku qoran 86 10 35 86 10 36 inta waad nagala soo xiriiri kartaan. EVC-ga lacagaha aad kusoo diraysaana furuhu waa 2 49 eber 6 49. ma ku xirna waktiga TV-ga aan fadhina keliya inaad lacagta soo sadaqaysataan, waqti walbaa sadaqaysan kartaan. akawnadu way shaqaynayaan, EVC-ga wuu shaqaynayaa, guddiga gurmadka abaarahana maalin iyo habeenay soo jeedaan, aad bay u shaqaynayaan, waa u diyaarsiin. qadka telefoonka. hallo, asalaamu calaykum. walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud. walaal magacaaga iyo halka aad joogto. kaalan kusoo dhawo barnaamijka gurmud. walaal maxaad ugu talagashay walaal sadaqada iyo booha, waxaad ugu talagashay dadka dhibaataysan? ya ما شاء الله kusoo dhawo. وعليكم السلام ورحمة الله. way ku maqlaan si toos aad ku maqlaan. in guddiyada guddigan si loo ballaaniyo habiso guddiya dheeraad ah oo kasoo bilaabanayo masaajidada, sababtoo anna waxaan dad muslimiin ah. صح qof kasta waxay ku duwataa masaajid. صح
gurmadka marka haddii masaajidada gurdiya laga dhiso oo shanta saacadood in lagu tukanayo mutabacaad laga sameeyo saca qadka ayaa ka go-a qofkaas. hallo qadka xiga. hallo asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaad joogto. magacaygu waxaa amiin maxamed axmed waxaan joogaa dalka sacuudiga. amiin oo sacuudi jooga hore u gal maxaad ugu tala gashay barnaamijkan tabarucaada walaal. anoo waxaan ugu talagalay $100 soo duceeyey dadkayga waa iga xaalayay igu soo duceysay sheekhaani igu sheeg. oo ku maqlaa si toosoo kuu maqlaa. maxamed amiin axmed waxaa igu soo duceeyey waa iga xelay. maxamed amiin al dhahaa jasaakum allah khayr. insha allah sheekh wuu soo duceynaya dadka isku duwan maraa loo soo wada duceynaya haddii allah awooda raalli ka noqdo. jasaakum allah khayr. jasaakum allah khayr. dadka telefoonkana way ku badan yihiin waxay leeyihin qof walban inuu asaga soo galo uu jecel yahay qof walba ciriirigana wuu iska badan yahay bal insha allah waa kala qaadi doonaa qayb qayba u kala qaadi doonaa marna waxaan fursadaha sii doonaa ra-iisul wasaaraha iyo sheekh nuur marna waxaan sii doonaa fursadaha telefoonka sida uu inoo sheegaba sheekh nuur sadaqada faa'iidada ee leedahay qof walba uu arkay barnaamijkii ahaa in roob tuug la sameeyo oo la soomo oo ay ballan qaadeen dowladda soomaaliyeed waxaa dib loo dhigay maalmo kadib insha allah waa la qaban doonaa haddii allah awoodo raalli ka noqdo waxaa lagu jiraa iclaankii ama diyaarintii ayaa lagu jiraa waa lasoo diyaarin doonaa waqti dhow insha allah in 4 maalmood loo soomo oo roobtuug loo sameeyo in ummadda dhibaateysan ilaahay abaaraha ka qaado abaartuna waa tii alle ilaahay hanaga qaado gacanta allena waan sugaynaa ummadda soomaaliyeedna gacantooda dadku way u fadhiyaan caawa waxay fursad weyn u tahay in ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka uu soo fadhiista t v-ga uu leeyahay dadka hala caawiyo hallo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaad joogto london faaduma cabdi cismaan oo london joogto kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal maxaad ugu tala gashay tabarucaadda sadaqada iyo boa $150 faaduma oo london joogta ayaa ugu talagashay inay ku sadaqaysato ummadda dhibaateysan ee abaaraha saameynta weyn ay gaarsiiyeen insha allah jasaakum allah khayr ilaahayna waa naga aqbali doonaa ducadana sheekha ayaa soo jeedin doona dhammaantiin haddii allah awoodo raalli ka noqdo sadaqada faa'iidada ay leedahay noo sii socota sheekh nuur in yar ha nooga taabta bal bismi illahi raxmaan marka hore ogeysiiska weliye cabdullaahi uu sheegay waxaa hadda ka hor culummadu ay faafisay ku dhawaaqday in la sameeyo roobdaantaas waxay ka koobnayd sidaad ogtihiin ama kamidaba aqoon cilmigeedii iyo shuruudeedaba in la toobad keeno la istikfaarsado radul madaalim wixii dulmi ahoo jiray laysu celiyo haddii hanti ahayd 4 maalmood la soomo maalinta afraad ee la sooman yahay salaad loo baxo asagoo la iscafiyey oo la toobad keenay marka ogeysiiska caawa aan bixinayno waxaa weeye salaadii berri bay qorshihii berigii hore la sheegay ay ahayd berri sabtida laakiin culimmadii gobollada joogtay qaarkood oo soo codsaday wax yar dib in loogu dhigo darteed baa dib loogu dhigay maalinta subaxa talaadada ah biidni illaah subaxa talaadada ah ayaa la qaban doonaa inta ka horeysana insha allah madaxda qaranka ayaa baaq soo jeedinaysa ummadda oo dhan gaadhsiinaysa si isteedyada soomaalida oo dhan maalintaas hal maalin loo tukado ilaahayna loogu toobad keeno oo loo baryo marka inaad sidaa u ogaataan wey waad mahadsantihiin mahadsanid sheekh dadka telefoonka ayaan siinayna hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halka aad joogto naciima oo norway joogtay oo kusoo dhawo maxaad ugu tala gashay barnaamijka inaad uga qayb gashay caawa
waa su-aasha koowaad waa kaa gudubnay maxaa ku xiga su-aasha labaad maxaad ugu tala gashay xawaalad walba waa lagu soo diri karaa aadaad umahadsan tahay lacagta waad soo diri kartaa meel walbaad kusoo diri kartaa xawaaladoo dhan iyo bangiyada meesha ku qoran intaba guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha kusoo qor guddiga qaran ee gurmadka abaaraha muqdisho ha akawnada meesha shaashaday ku qoran yihiin akawnada shaashada akoonka dahabshiil waxaa weeye eber 36 eber 51 ma maqashin nacimo marka akoonkaas waad kusoo shubi kartaan akoonada kale meesha ka muuqda salaam somali bank iyo premier bank iyo amal tab bank dhamaan waxaas waad kusoo diri kartaan waxaa kaloo nacimo ku xasuusin si uusan waxbaba u khaldamin dad kaloo waxaan maqlayay guddi abaare iyo wax sheegta markaad guddiga gurmadka aada qortid gadaal waxaad ka raacisaa sheekh nuur baaruud gurxan haddii xawaalada telefoon ay ku weydiiso telefoonkaygu waxaa weeye 5 3 eber 3 7 3 8 mahadsaned sheekh qadka telefoonka ayaa lagu jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام. walaal kusoo dhawow barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaad joogto adigoo mahadsan مغرب وأنا بلدوي. beledweyne kusoo dhawow hore ugal maxaad ugu tala gashay barnaamijka inaad uga qayb gasho caawa tabarucadda وطلقني أطور. $1 jasaakum allahu khayr adoo beledweyne joogo saacaddaan usoo jeeda jasaakum allahu khayr $1 ayaa ugu tala gashay e v c-ga ayuu kusoo diraya qofka haddii allah wada raadnado waa canug yar oo aan Masha filayo Allah. da-diisu inay aada u yartahay qadka xiga halo asalaamu calaykum insha allah halo asalaamu calaykum guddiga gurmadka waa si toos aad ugu jirtaa codkaaga kor u qaad telefishinka ha iga daawan telefoonka igala soo waado telefishinka ha daawan iska gaabi telefoonka igala soco fadlan codkaaga kor u qaad wuu gaaban yahay qofkaasi waa ismaqli weyne qadka ayaa ka xumaaday waa barnaamijkii gurmud walaal oo loogu gurmanayay ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu xoogan ay saameynta ku yeesheen ee dalka soomaaliya daafihiisa jooga runtii dadka soomaaliyeed oo ku caan ahaa in ay koobka shaa ama xabadda rotiya qaybsadaan maanta oo ay joogto maalintii sekada sida culamada ay noo sheegeen ilaahayna qur-aankiisa inoo sheegay sekada waxaad ku bixi lahayd waad ku bixin kartaa sadaqadan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaad joogto dooxaa ka soo hadlaysaa kusoo dhawo barnaamijka maxaad ugu tala gasho walaal inaad uga qayb gasho tabarucaad berita insha allah guddigin jasaakum allah khayr wuxuu leeyahay waxaan waa ku maqlaa sheekha ilaahay waxaan ka baryaynaa cusmaan oo qofka ajiraneed sheegtay inuu ilaahay caafimaad sariica siiyo sadaqadana waa cudurkay daaweysaa siduu nebigeenu inoo sheegay caafimaad deg deg ayaan ilaahay u weydiinaynaa adigana xamaaska iyo muslimnimada iyo soomaalinimada allah kaa aqbalo
dadaalkaasna waad wadaysaan insha allah waxaad aruursaanna guddigaad kusoo hagaajin doontaan jazaakum allahu khayr. جزاكم الله خير. هلو السلام عليكم. هلو السلام عليكم. walaal ku soo dhaweey barnaamijka gurmud walaal magacaaga halka aad joogto xagee joogtaa sweden maxaad ugu tala gashay barnaamijka tabarucaadda haye waa hadli kartaa waa hadli kartaa صح صح إذا عن أعطينا عن فيديو أو عن فيسبوك بتاعت المحاولة الوجودية إن لا يشتري هروت هذلك مسكة بيها وعبيد لازم يأتون يبوني ومالها مطرش بالنسبة للقناة بيها يأتون بيها حقل هني وكيف نجري أدوية خلاص أنا بيها بيها نصف عليه كون الحياة يكون غلطان أو مثلا سيرك كل الوجود ده هاي جيرو سلا أمور في عشان جيرو أقول بذا أنا أقول أقول مثلا مدينة أيوة رابط الموضوع جدا يقوم بقول موضوع جدا ممكن هذه داري أبرانا هذا بيسلو مقرب من هذه العمليات بالأمور همالي هذا aad ayaa umahadsantaha qorshe fiican ayaad sheegtay in la sameeyo guddigeeda abuur in gurmadka si fiican loogu gurmado in dhulka markii abaaraha laga baxo ee laga shaqeeyo kolley waxaa garabkayga fadhiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka somalia isaga ayaa barnaamijyadaasna ka jawaabi doona haddii allah awoodda raalli ka noqdo dadku sidaasay u wada cabanayaan ay uga sheeganayaan in ay soomaaliya u baahan tahay gacan qabad ra-iisul wasaare war kusoo dhawow adigun markale waa mahadsan tahay soomaaliya horta waxyaabo badan ay u baahan tahay waxaan laakiin anigu dhihi lahaa soomaaliya waxay u baahan tahay inay barato iyadu inay isku tashato dadka soomaaliyeed inay iyadu isku tashadaan isu gurmadaan abaartan haddii ilaah yidhaahdo marka aan ka baxno shacab iyo dowladba inaan ka tashano sidii aanay mar dambe noogu soo noqon lahayn abaar dambe oo aan dib u eegno maxaa la yeeli karaa khubrada aan leenahay aqoon-yahanada aan leenahay inaan isu keeno geeda abuurku waa mid ka mid a waddanka dhaqaalihiisa oo la kobciyo waa mid kaloo ka mid a nabadgelyada oo wax laga qabto waa mid kaloo ka mid a webiyadeena oo si fiican looga manfacadsado waa mid ka mid a laakiin waxaan u baahannahay kow inaan abaarta hadda ka baxno waxaa haddana haysta maanta waa abaarta labo inaan u istaagno o aan ka shaqeyno sida aan hadda abaarta uga shaqeynayno sidii aanay mar dambe noogu soo noqon lahayn oo aan ka heshiino tallaabooyinka ugu habboon oo la qaadi karo dadka soomaaliyeed oo dhanna waa arrin ay mas-uuliyad ka saaran tahay haddii ilaa yidhaahdo annagana waxaan u fududayn doonaa sidii looga wada hadli lahaa xaaladaha sidaasa aad ay umahadsantaha mudan ra-isul wasaare ra-isul wasaaraha wuxuu leeyahay waad maqlaysaan in aan hadda gurmadka hadda ayuu waajib yahay in aanu qabano tallaabada koowaad tallaabada labaad iyo ta saddexaadna waanu qaadi doonaa haddii allah awooda raalli ka noqdo laakiin waktigan wakti wax la sugo lama joogo ama dib loo dhigto ama laga hadlo wakti dambe waxaan samayn lahayn xaaladda maanta lagu jiro ayaa dadka soomaaliyeed oo tiradooda gaaraysa 12 milyan bar kamida ayaa maanta u dhimanayo gaajo iyo haraad iyo dawo la-aan taasi waxay muujinaysaa inay dadka soomaaliyeed bar kamida intay dhiman lahayn inay badbaadada ka qayb qaataan kadibna qof walba wuxuu rabo danta uu leeyahay iyo waxa uu damacsan yahay inuu dalku horumariyo inuu dib ka soo sheego balse hadda ta koowaad aan qaadayn inay noqoto inaan dadka u gurmano tiradeena 12 milyan haddii maanta 6 milyan ay abaar hayso oo dhibaato haysato waxaan filayaa inay 60 milyan kale u gurman karaan ay isku filnaan karaan bal qadadka teleefanada aan u jilaacna markana halo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaaga halka aad joogto minneapolis kusoo dhawo walaal maxaad ugu tala gasha caawa barnaamijka inaad uga qayb gasho
jasaakum allah khayr. $200 ayaad hadda soo dhigaysaa amal haddii allah uu raalli ka noqdo isagoo dalka maraykanka kasoo hadlahay. jasaakum allah khayr. meeshaa kasoo qaadana ka badan ilaah soo dhiga khayrkeedana insha allah waad heli doontaa haddii allah uu raalli ka noqdo. waa barnaamijka gurmud walaal ee lagu gurmanayo ummadda dhibaataysan ee xaaladaha adag ee abaaruhu maanta ay meesha xun ka gaarsiisan yihiin, dadka soomaaliyeedna ay dareensan yihiin. balse waxaa fursad weyn inuu ah inuu caawa ra-isul wasaare xukuumadda federaalka somalia laftigiisu soo fadhiista telefishinka qaranka uu leeyahay war dadka soomaaliyeedo isu gurmada oo gacan isgaarsiiya oo isu kaalmeeya si aanan ugu tashan ummad kale inaan isku tashanno ayaa ka haboon, ayaa hadaladiis kamid ahaa. hallo, asalaamu calaykum. waa mahadsantaha, waa laga qaada waa kusoo dhawo barnaamij gurmud waa magacaaga iyo halkaa joogto. kusoo dhawo suuriq adoo kasoo hadlaya switzerland oo ku maqlaaya dhammaan. maxaad ugu tala gashay barnaamijka tabarucaadda? jasaakum allah khayr. $5,000 ayaa soo diraysaan jaaliyadda switzerland way ku maqlaayaan. sheekh nuur iyo ra-isul wasaaraha way ku maqlaayaan. waxaan leeyahay ilaahay meeshaa kasoo qaadiin ka badan ha soo dhigo. mustafa aad baad u mahadsan tahay. maasha allah wuu ku maqlaa ra-isul wasaarahana shaqada uu qabanayo iyo dhiirigelintiisaba inaad la socotaan ummadda soomaaliyeed in ay dareemaan waa midda loo baahan yahay inuu ra-isul wasaaraha noqday qof inta soo fariistale dadkiina kaalmeeya oo taakuleeya oo maanta ra-isul wasaarihii dalka ah. waxaan filayaa inay meeshii ugu dambeysay ay soomaali ka joogto. taasi waxaan rajeynayaa inay qof walba dareemi karto shucuurta dareenkiisa soo gaarsiisay inuu ra-isul wasaarihii soo fariisto telefishinka qaranka oo sheekh nuur baaruud uu soo fadhiisto oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay yidhahdaan war aan iskacan qabano hadba kiina daran taageera weligiina ayay joogtaa. maanta wixii dhiig lahow kaca waa xaaladii soomaaliyeed ee maanta abaaraha. waxaan rajeynaya in ummadda soomaaliyeed inay gurmadkaa u wada gurman doonaan haddii allah awooda raalli ka noqdo. sheekh nuur adaan ku siinayaa dad badan baa laha naloo soo duceeyo sadaqada faa'iidada ay leedahan ummadda mar walba inay gaarto waa loo baahan yahay. waa dad intii tiraha naloo soo duceeyo ismaaciil iyo hooyadii adeerkii qadan waan u ducaynay allaha caafiyo. faadimo cabdi cismaan oo iyadana tiri lai soo duceeyo. iyadana waxaan leenahay wixii aad bixisay meeshaad ka qaaday wax ka khayr badan. aakhiradaadi adduunkaagana alla hagaajiyo, caruurta allah idiin hagaajiyo, diintiina iyo iimaankiinana allah idiin ilaaliyo. inta wax bixisay oo dhan iyo soomaalida oo dhan ba. mustaf bashiir xaaji goobdoon hadda inala hadlayey hadda ka hor waan wada hadalnay. waa ninkii igu xidhay gobol kamid a switzerland suuriq ahaa oo aan la hadlay oo hadal u jeediyay oo ballan qaaday inay wax soo ururiyaan. aad baad u mahadsantihin. sidaas oo kale waxaan jeclaan lahaa meesha $100 iyo konton laga soo diri inta laysu tago jugtaas weyn baa fiican oo markiiba gobolada loo diri karaa si dhaqsaa loogu gurman karaa. in inta la aruuriyo aruurintana inaan lagu daahin oo si dhaqso ah inta loo aruuriyo sidaas oo kale switzerland ay yeeleen in wax kuusan lasoo diro aad baan u jeclaan lahaa. baaraka allahu fiikum. waxaan idiin sheegayaa sadaqada xooluhu inay ku bato. allahu rabbulcaalamiin ayaa wuxuu ballan qaaday qofkii wax bixiya inuu u bedelayo. ilaahay hadalkiisu waa run. ilaahay wuxuu yihi wamaa anfaqtum min shayin wixii aada bixisaan intuu doonay hala ekaado fa huwa yukhlifu. ilaahay baa bedelkiisii keenaya. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay subax walba xagga ilaahay inay ka dhawaaqayaan 2 malag oo midi leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafan. ilaahay ow qofka wax bixiyo bedel sii. ka kalena uu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafa. ilaahay oo qofkii xoolihiisa haysta oo bakayla ilaahay xoolaha ka baabi. 2 malag oo daahir ah oo ilaahay baryey ilaahay wuu ka aqbalayaa. marka xoolaha la bakaylayo baaba bay keenayaan, xoolihii way dhammaanayaan. qur-aanka ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun. waxaa aayadda awalkeedii ku jirta oo laga soo sheekeeyey
dadkii ansaar iyo muhaajiriin inay isu hori jireen hantida, qofkii asagoo u baahan inuu qofka walaalkiisa siin jiray. caaisha oo xaaskii nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam, xilligii nebigu uu dhintay ee sayd cumar uu ahaa amiirulmu'miniin, sayd cumar baa wuxuu usoo dhiibay qandi ay lacag badan ku jirto. lacagtii gabadhii la joogtay ee khaadimadda ahayd bariira ayay u dhibto, waxay tihi soom bay ahayd, dadka deriska u qaybi, qoys hebel ugey intaa, qoys hebel ugey intaasay u lahayd. iyo makribkii markii la gaadhay baa soo dhawaadaa, waxay tihi bal qandigii inuu wax ku hadhay walow 1 shilin oon afur ku raadsanay inoo raadi. gacantay gelisay, waxay tihi caaisha waxba kuma hadhin, nafteedii bay hortay, walaalahood bay u hortay. dadkaas oo kale ilaahay wuxuu ku yihi waman yuuqa shuxa nafsi, laxajaclada naftiisa qofku ilaahay ka ilaaliyo, fa ulaa'ika hum almuflixuun, duulkaasi way liibaaneen. liibaantu waxaa weeye waxaad jeceshahayna inaad heshid, wixii xun ood nacabtahayna inaad ka badbaadid. liibaantaas waxaa lagu helayaa naftaadu waxay u baahan tahay inaad bixisid. islaamku wuxuu ammaanaa jira oo la yidhaha darajat liithaar, qofku naftiisa intuu ka qaado oo u baahan nafta walaalkiisa. ka soo qaad maanta waxaad haysataa $1,000 maalan, waad u baahanta, intaasoo barnaamij baa kugu furan, waxaad aragtay dhibaato, waxaad tiri war ilaahay baa awalba ku siiyee, ilaahay baa keenaya bixi, shilinka maadan reebin waad bixisay. iithaar baa la yidhaha, naftaadaad ka qaaday, nafta walaalkaa ayaad u hurtay. taasoo kale waa kuwa ilaahay uu sheegayo, darajadaasaa laynaga rabaa. abubakar xoolihiisi oo dhan buu nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam si masaalixda muslimiinta loogu bixiyo. marka xoolaha maalku waxaa la yidhaha waa mindi laba af leh, haddii si xun loo adeegsadana wuu ku baabi'inayaa, haddii si fiican loo adeegsado oo waddooyinka khayrka ah, ceelal baad ku qoday, waddooyin baad ku dhistay, madaaris, jaamacad, masaajid, khayrka guud ee nacfiga badan ee ummadda wada gaadhaya. kolkaasoo kale waxaad noqonaysaa kuwa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nicma almaalu saalix lirajuli saalix, waxaa fiican maalka fiican xalaasha ah oo qof fiicanna gacanta uu ku hayo oo waddada khayrka ah ku bixinayo. marka walaalayaal hala degdego, xoolaha hala huro. maanta arrintu ciyaar ma aha, waa la dhimanayaa. markaan hadda halkan soo gelayay, waxaa soono iyo ma aqaan waxii soo diray, waxaa ku qornaa cadaado waxaa lasoo seexiyey 120 qof oo shuban biyood usoo dhacay. maanta wararku waxay sheegayeen ceel barde 60 qof inay degmada ceel barde 30 qof inay ku dhimatay. bay iyo bokool iska badaa intiisa, bokool intiisa kale iyo bayna dhimashadu way ku badnayd, meelo badan bay dhimashadii ka jirtaa. marka hala tartamo, khayrka ha loo soo tartamo. baaraka allahu fiikum. jasaakum allah khayr. sheekh nuur baaruud gurxan wuxuu kusoo gabagabeeyey khayrka ha loo tartamo, khayrka ha loo tartamo. hallo, asalaamu calaykum. walaal kusoo dhawow barnaamijka gurmud walaal, magacaaga iyo halka aad joogto. wixii tabartaada waad ku darsan kartaa. ra-iisul wasaaraha iyo shiiqana way ku maqlaan, si toosa ayay ku maqlaan. hadal wala waa hadli kartaa, waa ku maqlaan labadaba. wuu ku maqlaya ra-isul wasaaraha, si toosoo kuu maqlaa, wuu kula socdaa walaal, hadalkaaga wado. okay. TV-ga ha fiirsan walaal, telefishinka ha fiirsan, telefoonka igala soco, TV-ga iska gaabi, waxba ha fiirsan, telefoonka igala soco si aan si toos ugu maqalno. hawada ayaa si toos ugu jirtaa, waa lagu maqlaa, waa lagula socdaa.
fadlan iska gaabi t v-ga codkeeda nagu soo laba noqonaya fadlan iska gaabi t v-ga telefishinka ayuu daawanaya codkiisa ayaa kusoo laba noqonaya waxaan rabaa inaan ra-isul wasaaraha siiyo masajkiisa waan fahmnay waan fahminaa masajkiisa ra-isul wasaare wuxuu leeyahay jaaliyadda soomaalida ee sacuudi carabiya joogto hala soo hadlaana dowladda haloo sheegay in consuliyadda hala hadlo si sanduuq loo furo insha allah fursadahaasi way badan yihiin jaaliyaduhuna way badan yihiin dalka dibadiisa way wada joogaan soomaalida meel walbay joogaan dalalka ugu faraha badan sida minnesota oo kale wax warbixin haddii aad ka heyso goboladaas waaweyn warbixintooda waadna siin doontaa fariinta uu soo gudbiyey walaalkeena waa rajeynana inaad ka jawaabi doonto fariinta walaalkeen horta aada ugu mahadsan yahay waa talo aada u wanaagsan taladaasna waa talo aan rabno inaan haddii ilaa yihahdo dabagalno waan la xiriiri doonaa safiirka iyo safaaradda iyo qunsuliyaddaba waxaana ka codsan doonaa wasaaradda arrimaha dibadda in ay la xiriiraan safaaradaha aan dunida dacaladeeda dhan ku leenahay oo aan u sheegi doono in ay la xiriiraan dadka soomaaliyada oo degan meelahaas si cid walba wax walba oo taakuleyna ay siin karta shacabkeeda u siiso dadka soomaaliyeed waxaan rabaa mar kale inaan ugu celiyo xaaladdu maanta ummadda soomaaliyeed waxay ka maraysaa meel an waad maqlayseen sheekh nuur baaruud waxa uu ka sheegayay cadaado baayo bakool iyo meelo badan oo dalka ka mid ah dad badan ayaa ku dhimanaya dad badan ayaa ku xanuunsan meelo badan dadkii si walba loogu gurmado wixii lahaayey way ku yaryihiin haddii aada awoodid wax alla iyo waxaad awoodid yaanay kula yaraanin waxay la badan tahay cid kale maanta sidaan hore u sheegay dadka soomaaliyeed siday isugu gurmadaan waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed maanta dadkeenna sida aan gacan u gaarsiino waxay wax ka sheegi doontaa dadnimadeena intay la eg tahay iyo walaaltinimadeena intay gaarsiisan tahay magaalada muqdisho iyo dhammaan magaalooyinka kale dadka soomaaliyeed oo degan oo haysta fursad ay e v c wax ugu soo diraan waxaa ka furan account e v c ah oo ay maamulaan sheekh nuur baaruud iyo dadka la shaqeeya oo guddiga gurmadka ku jira haddii aad dollar awoodid ama 5 ama 10 ama 20 ama 100 waxaad awoodid yaani kula yaraanin fadlan sida ugu dhaqsaha badan u soo dir haddii aada la daahdid waxaa laga yaabaa in qof dhibaataysan aad kala daahdid arrinkaas sida ugu dhaqsaha badan marka dadka soomaalida waxaan ka codsanayaa inay sidaas yeelaan kuwa degan dalka dibaddiisa oo noloshoodu ay dhaanto dadka badankood gudaha jooga waxaa laydinka rabaa inaad intaad isu tagtaan sida uu sheegay sheekh nuur baaruud bisabaabushaan wax iska aruurisaan usoo gurmataan dadkiina soomaaliyeed waxaan mar kale iyo mar saddexaadba ku celinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka walaalaheena oo abaartana ay saamaysay waa xaalad garaab ah fadlan ha hagranin wixii aada awoodo haddii wax yar oo soomaalinimo ah ay nagu hartay maanta ayay dadka soomaaliyeed isu baahan yihiin maasha allah aad ayuu umahadsan yahay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali kheyre wuxuu dhiirigelin muuqda ka sameeyey in ay ummadda soomaaliyeed ay maanta isu baahan yihiin ay tahay maalintii sida xoogga laysugu baahnaa inaan waxba dib loo dhiganin maanta gurmadkuna uu ahaado mid si guud ahaan looga wada qayb galo dhammaan ummadda soomaliyeed meel walbay joogaan hadday noqon lahayn kuwa dibadaha joogo jaaliyadaha is ururiya qayb kasoo dhiga sida sheekh nuur uu sheego kale jaaliyadda switzerland oo kale oo soo ururiso hal mar lacag buuxda soo dirtay haddaad isu tagtaanna waa sida haddii kalena waxaad kusoo diri kartaan akawnada meesha ku qoran iyo e v c-ga qofkii dalka gudihiisa joogo taasi waa dardaarankii uu ina siiyey sheekh nuur iyo ra-isul wasaare xasan labadaba waxay leeyihiin fadlan gurmadku ha noqdo mid si xoogan loo gulmado ma aha maanta maalintii la sugi lahaa in dib loo dhigo in saacad dib aa u dhigto waxaa ka fiican sekanka aad joogto inaad soo sadaqaysato wixii aad ugu talagasho waxaa laga yaabaa inuu qof u geeriyoodo sadaqada caawa aad bixilaad hadii gaartay berrito inuu qof u geeriyoodo fadlan sida ay inoo sheegeen culammada iyo ra-isul wasaaraha oo caawa dhiirigelin weyn ka muujiyey soona fariisa telefishinka qaranka isagoo weliba codsanayo in laysu gurmado dadkana loo gurmado xilliguna oo yaa xilligii ugu liitay ee laysu gurman lahaa fadlan ha la xiriiro ha laysu tago ha noqoto gurmad laysugu gargaaro ummadda soomaaliyed meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan sheekh nuur siiyo laba kelmad sida uu marka horeba ka dhawaajiyay in jaaliyadaha dhammaan isu tagaan ayagoo isu duban ay wax soo diraan sax weeye waxaa weeye
dadka wax walba sida la sheegay ku anfacayaa. haddana matalan inta qofku intuu khadka soo galo ku rafaadi lahaa oo kolkuu soo galona $50 $100 u dhihi lahaa, waxaa fiican inay is aruursadaan hal mar ay soo diraan. hadda galabta dad baa ila soo hadlay Australia oo yidhi waan is aruursanaynaa. way ku mahadsan yihiin, ha is aruursadeen. waana si yaana dib u dhac badan ayuuna dhicin. si dhaqsaa intay wax u ururiyaan hal mar ha ku soo direen shirkadaha waaweyn sida dahabshiil iyo amal iyo shirkadaha meeshaas ka dhow oo dhan tay tahayba. shirkadii kalo kasta oo kuu dhow waxaad guddiga qaranka unbaad kusoo qoraysaa. waan ka qaadaynaa. sidaas hala yeelo biidn illaah. waxaan rabaa mar kale inaan dadka xasuusiyo, ra-iisul wasaaruhuna idiin sheegay, ilaahay aan ku tiirsanno, innaga nafteennana aan isku tiirsanno. soomaalidu waa inay ogaataa ilaa hadda wax micno leh oo dalka soo gaadhay oo dunida ka yimid. shanqaro badan waan maqlaynaa, waxbaa la soo wadaa, lacagaa la helay, hay-adahan way heleen, kuwo kalaa la sugayaa. dee horta mushkiladu waxaaba weeye, xataa hadday keenaan goor la dhintay oo xeedhihii faldhaan kala dhaceen yay keenayaan. innagu marka waxaan u baahannahay inaan inagu waxaas oo dhan ka hormaro. dadkeenna innagaa xanuunsanayna. innaga waxan waa hilibkeennii, jiirhkeennii wey. marka inagu inaynaan hay-ad sugin, dawlad sugin, waxaa weeye inagu soomaali ahaan inaan garanno xilka inagu inuu ina saaran yahay. waxani waa iimaankeenna iyo dhaawaci haddaan wax bixin weyno oo dadkaasi inagoo nool oo ladan ay gaajo u dhintaan, iimaankeenna ay dhaawacaysaa. maanta qof baa soo hadlay oo yihi markaan fadhinay universal, dadka qayilaya xaq ma aha inay dadna qayilaan oy lacag qaad ka bixiyaan, dadna gaajo u dhintaan iyo on. waa sax. horta waktigan oo kale qofka qayilaya akhlaaq iyo iimaan iyo diintoona ma laha. waa qof runtii liita wey. xilligan oo kale mayaa la qayilaa? anugu waxaan idhi iska daa in la qayilee, waktigan oo kale waxaaba habboon qofka xataa waxaysto oo yoomkii qade iyo quraac iyo casho cuni jiray inuu yareeyo. yoomkii hal mar haddii la cuno waa la joogi karaa. inta kale inuu sadaqa ka dhigo. marka walaalayaal arrintu halkaasay maraysaa. waxaa weye dad baa laga yaabaa inayna waxba bixinin, cuntana guridooda ay ku daadaadiyaan. qof soomaaliya isagoo gaajo u dhimanayo. waxaas oo dhan walaalayaal halaga waantoobo. waxaa weye ilaahay wayna arkayaa, wuuna inala xisaabtamayaa. ummadihii hore islaam ka mida oo weliba naagaha xunxun lagu sheegay yaa ay waraabisay. biyo ceel bay biyo ka cabtay iyadoo ooman. waxay aragtay dacdii leefleefaya oon darti. waxay tiri oonkii aniga ihaye oo kalaan yaa haya eyga. eygii bay waraabisay. kabihii ay qabtay ee buudka ahaa yay usoo dardartay ilaa u ka dhergo. ilaahay baa islaantii dembigeeda dhaafay. waa ay oonkii ka goysay ayay janno ku gashay oo ilaahay dembigeeda ku dhaafay. weliba dembi weyn bay ku jirta oo naag xun bay ahayd baa lii. marka maxaad u malaynaysaa qof muslin ah oo walaalkaa ah, soomaali ah, aada isku qiblo ku tukataan, isku kitaab rumaysantihiin, isku nebi rumaysantihiin, oo gargaarkiisu waajib uu kugu yahay. haddaad u danqan weydid ka waran oo gaajo iyo oon u dhinto, adna aada sinafaraani iska tood meeshan iska qusqusli ood cunto iska cuncuni, ma anfacayso. iimaankay dhaawacaysaa taasi. muslimiintu waa kal jasad ilwaaxid. nabigeenaa sheegay calayhi salaatu wasalaam, mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali ljasad ilwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. muslimiinta tilmaantoodu siday isu jecel yihiin, isugu naxariisanayaan, waa kal jasad ilwaaxid.
waa qof jidhkii oo kale korkii oo kale hadday xubin ka xanuunsato yidhi nebigu tadaaca lahu saa'ilu ljasadi bisahri walxuma jidhka intiisii kale ka soo qaad far ciddi hadday ku xanuunto ma seexanaysa waad qandhan jidhkii oo dhan baa ku xanuuni muslimiintu marka waa sidaas oo kale almu'minu lilmu'mini kalbunyaan muminka kale wuxuu yahay dhistaas oo kale way isku dhisan yihiin way isku tiirsan yihiin hadduu dhinaca dhismahaasi ka dumo hadda kii kale wuu dumaya marka dadkeenu hadday dhintaan hadda dhulkaaba laynaga qaadan 6 milyan hadda hadday naga dhimato dhulkaaba laynaga qaadan waad aragteen africa ayaan ugu bad dheernahay badda ilaahay ina siiyey webiyada oo ina siiyey cimiladeenna dhulkeenna quruxdiisa iyo sharaftiisa dad baa la rabaa awlbuba dadku inagu yaraa marka waxaasoo dhan hala xeeriyo baaraka allahu fiikum meeshan rida ilaahay hala doonto ilaahay dembi dhaaf ha laga baryo fataquu naara walow bishiqi tamra nebigu wuxuu yihi naarta iska ilaaliya sadaqadu naarta gaashaan bay u tahay walow timir jeexeed wax kale haddaad weydaan xaba timira jeexeed marka wax kale haddaad weydi $1 baad bixinaysaa allah yubaarak fiikum jasaakum allah khayr aad ayuu mahadsan yahay sheekh nuur baaruud inta aanu gabagabada barnaamijka soo gunaadin inagoo soo gaarnay xilliyadii aan hawada kaga bixi lahayn barnaamijka gurmud walaal waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaaraha siiye 2 kelmad oo dadka ay iskugu yidhaahdaan kulankiisa inaanu ilaahay nabad inugu gaarsiiyey iyo dardaarankii ra-iisul wasaaraha oo ahaa inay soomaaliya gacanta isqabsato lana gaarsiiyey gurmadka abaaraha mudan ra-isul wasaare gunaanidka barnaamijka waa mahadsan tahay telefishinka qaranka sheekh nuur baaruud oo aan runtii aada ugu ammaanayo dadaalka uu u muujiyey dadka soomaaliyeed aan u duceynayo waxaan rabaa inaan u mahad celiya cid walboo nala soo hadashay iyo cid walboo na daawanaysay inta nala soo hadashay oo dadka walaalahooda wax u garatay sheekh nuurna waa u duceeyey annagana waa u duceynaynaa waxaan u sheegaynaa wax walba oo aada bixisaan waa cid bay wax taraysaa halkan inaan fadhino wixii yaroo soo kordha waa wax aada muhiima caawa waxay ahayd runtii habeen kulligan muhiim no ah waa dadka soomaaliyeed gaarsiinay xaaladda waddanku uu ku sugan yahay waktigan xaadirka ah waxaan rabaa inaan markaa kusoo gebagabeeyo aan idhaahdo dadka soomaaliyeed waxaa u gurman kara keliya dadka walaalahooda meel walbay joogaan haddii aada magaalada xamar joogtid ama soomaaliya meel ka mid a oo aada awoodid $1 fadlan yaanay kula yaraanin haddii aad ka badan awoodidna soo dir haddii aad dalka dibaddiisa joogtid waxaan rabnaa inaan kuu sheegno annagaa og xaaladda dad badan oo soomaaliyeed ayaa baaba'san fadlan is ururiya isku taga kulligiin waxaadna yeeshaan soo dira la soo xiriira sheekh nuur iyo dadka la shaqeeya ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego dalka dowlad cusubaa ka dhalatay dowladdaasi waa dowlad shacab idinka iyo xukuumadda la dhisi doono iyo dowladda inteeda kale xildhibaanada madaxweynaha waxaan kulligeen noqon doonaa hal cod oan ka wada shaqeyn doona dalkan siduu abaarta uga bixi lahaa dalkan siduu musuqmaasuqa isaga tirtiri lahaa dalkan siduu afrika ugu hormari lahaa haddii ilaah yidhaahdo iyo dalkan sida uu dadkiisu cadaalad ugu noolaan lahaayeen waa mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre ayuu ahaa oo gunaanidkii barnaamijka kusoo gebagabeeyey in dalku uu u midoobo inay mid noqdaan soomaaliya meel walbo ay joogaan xukuumadda uu soo dhisi doonana insha allah iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabkuba inay noqon doonaan mid keliya oo hal wado ku socda hal mawqif leh hal go-aan leh hal ujeedo leh insha allah waa ka rajeynaa ra-isul wasaaraha inuu xukuumaddaasi noo soo dhiso haddii allah awoodil raalli ka noqdo barnaamijkan oo gurmud walaal oo aan aalaaba ku kulanno saacadahan oo kale 7:15 habeenimo ilaa iyo